maanta jikada ayaan wax yar bedeleynaa saan ayaan ka dhignay bahlada yarka u soo gatay insha Allah before sidaan ayay ahayd marka waxaa waaye maanta dhulka la soo dhigo waxaas oo dhan waxaa la rabaa in dib u habeen lagu sameeyo jiko xoogaa loo dulqaadan karo laga dhigo especially khaanadaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada channelka Xamdi Xarago insha Allah maanta waxa waaye wax yar guriga iska habeenayna especially khaanadaha maalin buu xijaanis loo hayo baa la soo sameeyay masabaha marka maanta baashan ayaa jaanis yar u helay waxa dhahay waa abadan inaan soo sameeyno insha Allah fiidiyan sidoo kale waxaan uga qayb qaadanay challenge ay sameynayso abaayo unicorn oo December loo sameeynayo gabdhaha loo sameeynayo insha Allah marka ani fiidiyayga waa kana challenge-ga uga qayb qaadanay waa fiidiyo yar oo soo diyaariyay in challenge-ga uga qayb qaato insha Allah la socod fiican ani alaabtana soo gatay waxa waaye alaabta ku gur lahaan khaanada markaan galiyo khaanadaasna waa khaanad yar oo single guriga khaanada badan mal halka xabo oo yarta ah iyo xabad kale geeska kale fridge-ka ku taala labadaana marka insha Allah marka ayaan rabo ayagana aan hagaajiyo maanta marka tan weyna jaan siinayna insha Allah waxa arkayaa inta caawa u soo harta insha Allah marka waxa la sameeynaa wax kasta dhulka la soo dhigayaa wax yar kadib qaanadeena hadda saan waaye wax kasta oo iskaga gurnaa daawada dhinac bileedahay dhinacaas abtimeelka iyo xagaas right kama dhaha daawada kaliya gelina wixii xaga ka soo xiga balaabiyada iyo waxa sagal gashanaa marka insha Allah maanta waxa way maligeeda galay waxa ku jiro dhan dhulka aan soo dhiganayna hadii Ilaahay idmo I don't know why albaabkaas ma istaagayaba naftu ii kana inta badan lama furfuro maadaama dhinacaas daawada la gasho hal mar wax laga soo baxaa maalinkii oo dhan marka lama qabsan ba u maleynaa inuu furo insha Allah maanta waxa dhaaylo gacana waan ku qaban gacana waa kaga soo gurasi kala ma lahan waxa alaab badan way ku jirtaa adna u dheerta cabaar ku jirta marka insha Allah waxa sameeynaa kulligood hal mar baa xarmaan dhulka inta iska soo dhigno mid kale waxa sameeynaa alaabtu xarbana badankooda tooro because waxa waaye waxyaabo badan iskaga jira meesha oo aan u baahnayn so kuma soo wada celinayo daawooyinka xaraba haaf in iska tooro waxyaabahan dib u isticmaalaynin oo kale marka insha Allah hadda dhinaca hoos baa soo tooro waxaas gees ku jira waa maqas yar anuu ma isticmaalo wuxuu la socday cidiye jare aan soo gatay dhowr cidiye jirta ilmaha ay dadka oo isku la jiraan buu ku dhex jiray marka waxa weeyaan waqti ma u helin ba meeshaas baa iska toor marka saana ka soo dhignay jikadii wixii dhan waa ka soo saarnay hadda insha Allah wax yar oo burkaas ku daadatay sonkor marka inta badan waa kala ingrana waa ka soo saarnaa Soomaa maanta kaliya laba kala ingrano marka wax saas badan oo ku daadadana mar waa sonkor oo burka waxaan geliyaa qayb hoose marka insha Allah elbow grease ayaan rabaa dharka ka soo siiyo baasha wajacla si caadi ah xukun ingresa laakiin waxa uu urkeedu waa very strong marka waxa waaye marka hagaajisano insha Allah alaabtu waxa la sameeynaa tartiib ugu guranayna bahalka cadcada boxada cadan ku celinaya wixii la tuuray insha Allah waa tuurana Soomaa marka tiishoga weyn oo soo gatay ila ku tirtiro baash urteeda bajaclo xaraam marka koo tiishoga ku tirtiro haddana mar labaad ina ku tirtiro maxaa la dhahaa biyo yar cad ina ku tirtiro because aad oo urta qaybta kore iyo xaruma isla soo tirtiray waxa ma insha Allah saas noqoto aad u yartahay gurigan waxa wada armaajooyinka lagu habaaro guriga hore ka soo guraa list armaajooyin fiican haystay hadda wixii qashinka lagu daraa tuurayna waxa soo dhaw tuuraya baasha soo fish oil baasha ilmaha caanaha loogu daro borotiinka tii ugu horeysa tuuray kenyaashaas waxa waaye wax yaran ka isticmaalnay kaas chili waay waxa soo dhaw waxa qashinka lagu daraa meesha iskaga jiraan oo mar waqti loo haayo bas dhahay iska kala habeen laakiin waxa way maanta la helo kaasna vitamin D iska tuurayna vitamin D kala haystaa fiican kaasna waa sharoobada gaaska iyo dana sharoobo hargabka loo cuno mar hore soo gatay kan waa haysanaa vitamin aad u fiican waxa soo dhaw waxa sameeynaa insha Allah waa kala shaandaynaya
wixii dheedkooda dhacay qashinka aadayaan taa dheedkooda ma dhicin mar kastaan wax samaystaa soo kiniiniyaasha oo kale daawooyinka especially halka mar wax laga isticmaalay kaas ana isticmaal hadda soma kaasna qashin ku qabana insha Allah waa waxa qashin ku dari karno qashka ku daraynaa baasha lisaan u soo gatay 2 bilood meesha ku jirta waxa waqti u waay markasta xadha sabaysanaya kaasna waa shay caleen laakiin ma isticmaalno ma tuuraayo kaas ma fiicna midda waxaan isticmaalnaa xirxiran oo yariiska oo halka mar koobka lagu ridanayo marka by mistake u soo gadanay anyway marka waxa dhahaa markii kari lagu karnaa bisa isticmaalaa ku saxidida inaan tuuro soo ma aha already basket ku buuxsamo sa ugu gurana wax meesha ku jiro dhan insha Allah hadda xasabeera wax oo u baahanaa dhinac isku marsanaya waska tuuraya fitamiin waxa way la fuuroon hadda ka hor ba soo gatay laakiin hadda ma cuni karo marka waa qashinka qabadsinaya kastarkaasna sidoo kale uu dhacay dhowr bilood sanad ka hor meesha iska jira dhowr bilood aan diin istaqfar dhowr jeer baan xeer ka samaystay marka wixii ka dambeeyay waaba iska tuuraba marka waxa la fiirinaa maanta wax kasta oo dheedkoodu dhici rabo ama dhacay iyo wax kasta oo dib aan u isticmaali doonin camal waxay qabanayaan qashinka camal ma jirto waxaan dhanna malab waay midka oo fariisan ku eg malab ku dhoontay ba aqaan maanta soo bixiyay kor buu meel galay marka kuwaana ka dambeeyay labadaas iska tuurina marka insha Allah malabka kaasa ka heesanaa cornflower-ka idan cabaari taale had dhowr jeer ba xalwad ku samaystay kadibna waa ka qash dhacay meel iska dhigmo isticmaalo kaasna waa fitamiin asagana insha Allah qashinka waxa lagu daray ku darayna basketka yarka waxyaabaha qashinka lagu guray inay buuxiyaan maanta quruuraxaas waa marka adeeg ka soo noqnoqda meelaha iskaga tuura marka waxa maanta waxa la isticmaalayna dib loo isticmaalayna waa malagooda galab ku baxayaan keedigaasna folic acid waa wakiin aad u fiican laakiin maanta qashinku aad asiga laftigiisa lisaayo iyadoo ka tuma wax yar ay taala 2 bilood meelaas isku mar soo gaday insha Allah mar raba inaan sabaysto di ilaahaydmo baalkaas allergy ku ahay 2 mar camal inta soo gatay waa ku xanuunsado iska tuura iyalka isdhahaysay ayagana ma jeclo waxa waaye qaar la sonkortan ka ilaaliya marka asaga laftigiisa iska baxaya vitamin D gaas asaga vitamin D fiican waa insha Allah marka u dhala raba inaan cuno waa aad u sareeya la tuuray ma ku jiro bacdan daawooyin caadi ah ku jiraan la soo qoray marka insha Allah xasameynana waxaan dhan waa kala gureynaa way baasha sinjibil waxay la socotay qaxwaan banaadir ku qoran tahay dhexda kaga sii jirta marka rabadaanka marka soo gadan qaxwa asaga kululaa marka xukumaana diri jirin sinjibish waxa sameeyay meel iskaga riday insha Allah fiidiina waa gabagaba isku soo dhamaatay caanahana fiirinay in wax ku jiraan waxa waaye maalmood ayaga soo gaday marka wax yar ku jira caana arwa ilmaha u qasaan hadda waxa sameynaa biraheena ka gashanayna soo gadanay bira markaan soo gatay waan biyo raaciyay waan dhaqay marka inta qalalaayeen dasoo meesha u saarnaayeen hadayta marka kuwan waxa lagu talgalay qasacyada iyo waxaas in iska saarto waxyaabaha fudud in la saaro saas u cusleen marka insha Allah intaas waa qashinka ka soo saarnay intaana waa xarba ina u soo gado dhalooyinka rarka xawaajiyaasha lagu guro xawaajiyaal waaye kuwan waxa xawaajiyaasha Soomaalida aan ka soo gaday iyo caleenta dayta dhahay way isku furan tahay ma kala xirxirna marka meesha ayada saas u isticmaalay meesha iska gariday marka insha Allah baaskidada waxa sameynaa kulli waa ku aruurinaa meesha hadii ilaahay idmo waa soo habeystay ma doobin ku gurguraa because fiidiya ana dheeraada diiday marka lisaayadii iyo waxyaabaha kale ka iskaga soo goray xawaajiyaasha insha Allah xaraan u soo gado furo yar aan ku guro aad u fiican marka insha Allah say ku soo baxda arkayna jikadii
jikadeeni saani kusoo baxday wixii oo dhan waxaa lagu wada guray basket to basket. Waxaa waaye basketdaasoo ku wada xareen. Insha Allah intaana iga soo hartay 2 basket iyo bahashaas armaajada geeska rabta jirta raba inaa ku